magaalada ka warrama bal arreeborta wajahantay war magaalada haddaan kaaga warramo abaan xasan wuxuu yidhi mar haddaad murugoto muusana ugu garweeye yaa muwaadinku aaway yaa muwaadinku aaway intaan ku hor fadhidaba waa muwaadiniina ma ajnabiya maha jooga ma hor fadhigiisaad muwaadin ku noqotay awal maadan ahayn war ma haysaane madaxweynaha Soomaaliya shalay galab wuxuu jeediyay khudbad taariikhi ah oo caaqiba leh walaaya bilana wuxuu ku maray dawladda uu madaxweynaha ka yahay inay dawlad wanaagsan tahay yawaahintiisa madaxweynuhu markii la doortay buu dhaartay laba jeer inuu dhaartana ma war markale hadii la doortay miyuu dhaaranayn warka iga dhaxgelinayna dhageysta madaxweynuhu wuxuu yiri markii la doortay shacabka Soomaaliyeed waad ogeydeen sidaad ii taageerteen walina waxa la idinka rabaa taageerada inaad sii wadaan gabayna waa raaci wuxuu yiri shacabkii da'yar iyo da'weyn dibadda soo dhoobtay oo ii durbaan tumay markaan daarta soo galayay ma dambiilayaal baa dhex galay hoos ka soo diraya yaa gobagaas min dadweynaha kamid ah ka jawaab wuxuuna yiri dadweynuhu dantow kaalahay waagi lagu doortay haday durugtay oo daahday oo maalin lagu diirsan waa duruuf dardartiya rajadii inay ka daalaan in lagu durbaan tumay doraa deyn miyay noqotay war mid kala asna wuxuu yiri madaxweynahan dooranno loo durbaan tumayay ma dambiilayaal baa u yimid nagu dubaynaya warnimayo shala badan baxidii dhacay oo dhaxmaray booliskii bajaajleedii tuugada ku dhex dhuumatay madaxda dhan ee dawladda hadashay laba qof ayay tacsiyeeyeen dadka dhintana waa 8 qof marka waxa la yaabanahay madaxdu labadii markii ugu horeysay la dilay kaliya miyay og yihiin war waa dawaqdeene soo ma dhici karto inaan madaxda loo sheeginba warnimada wiil yar oo saqiira saaka su'aali weydiiyay wuxuu yiri adeerow bajaajley iyo booliska dagaalamayaan maqlay bariyahaane ma laba beelood ba warnimada nin farata la yiraahdaa shirbada wuxuu yiri manfacadoon iyo mootaley hadii la maago way ismutaan ayaamahan dagaal baa socodiyay nabarro tuuriyaahe dhalin mootaley iyo haduu booliska islaayay dadweynuhu ulaamiyada qiiq ka kicinayo alla ilaahay sidoo shacabku rubay wali ma haysaane intaasan ku soo koobayaan si badin ya intaasaad nagu badisay warkaaga ma raba idageyso aniga waxaan dhihi lahay wixii dhintay waa dhinteen waana duugisay Allah u naxariisto aanada tira dabadooda waa la qabtaa wixii nool hadda hala daryeelo waa intaas tiriyo waxaan ku sii dari lahaa ninkii dhintay dhulkow gaale ninkii dhintay dhulkow gaale halka dhaqmaya dhowrahe ninkii dhintay dhulkow gaale halka dhaqmaya dhowrahe war ma inta dhimatay ooydan mise inta nool warniyow qowdhanow maalin kasta maxaad sii shisheeyeen noogula hadashaa dadka miyaadan wax ku lahayn war adeerwadu waarantee jaar baynu leeyahay dawaqin anigu waxaan leeyahay dambi aadna lahayn iyo duquleyma xambaarsadiyay baa ka haboone dadkayga isku duubna jiritaanka difaacda war aan si maanta war ma heesaan baarlamaankii saxaafadu waa tii laga saaray shaqaale baarlamaanka waa lagu daro maanta iyagana banaanka la geeyay warmeeshii iyo kabalyeerika baarlamaanka laftiisa waxa la yiri telefoon haduu ku soo dhaco ma qaban kadib mana diri kartiin waxa kale la yiri 2 daqiiqo ka badan su'aashiisu ma dhaafi karto xildhibaanka marka baarlamaankii hadii la caburiyay shacabka maxaad u maleynaysaan ya kululaatay xaajadii wax kale meel kale u tagay ahaahe war waxa mawlidiin waxa la yiri su'aalaha ugu badan waxa la weydiiyay Faad Yaasiin waxa laga weydiiyay arinta Robow wuxuu yiri taa aniga iyo mataala garsoorka la weydiiyo waxa la weydiiyay jidadka dhagaxyada la dhigay xaaladda amniga wuxuu yiri aniga iyo mataala taliyaasha la weydiiyo waxa la weydiiyay saraakiisha nabad sugidda mushaarkoodii wuxuu yiri aniga iyo mataale sargaalka mushaar qaadan hortayda hala keeno war ma hayside su'aalaha kale badan waxa la weydiiyay wasiirka amniga islow markii la weydiiyay su'aasha iima taala ma yiri xawdii way faadaaba ugu horeeyay warana waxaan la yaabanahay xildhibaanada inta faad soo fadhiisiyeen su'aalaha weydiiyay xilkooda ma rabaan miya warsaliyaha booliska waxa wax laga weydiiyay dalalkii dhacay oo ciidanka boolisku geystay iyo isku dhacyadii dhaxmaray booliska iyo militariga su'aal kastoo la weydiiyay wuxuu uga jawaabay ciidankii geystay waa soo xirnay muxuu dhii waayay taliyaha militari waa dusan militariga saxashaneen anigu kaliya booliska ma xisha karo horta marka horeba militari inuu beledka soo galo booliska ku diriraan aaba qaladahay aryaadaha su'aal lees weydiiyo xabatari mays beledkan waxa ka dhacayana cid moogu ma jirto ee waxaan dhixi lahaa
ilaahowna badbaadiyo ilaahowna badbaadiyo nabiixii baadila baate ilaahowna badbaadiyo nabiixii baadila baate aamiin warkan warka weynaa idiin hayaayay dhegaysta kenya waxay dacwad ka gudbisay tansaaniya waxayna tiri roobkii naga hor joogsatay waxay kaloo raacaysay warkaas uganda waxay naga haysataa webi la yidhaahdo majingo soomaaliyana baddii naga qaadatay tiri ilaahow dariska noo bedelay tiri adaa koonka xukume yaa ilaahay ha ka aqbalo iyakana dhexdaan ilaahay ha ka baxsho cid kaloo ka khayroonna ilaahay ha noogu bedelo maxaad cid kale u keeni annagaa bedegayna meeshay ka baxdeen warniya war ma haysaane somalilan oo dhan roob doon baa ka dhacday ilaahay baana roob ka barinay inuu noo keeno sida kenya bila'aadan ka dacwoon mayne ilaahay baan roob weydiisanay cid naga eshan kartaana ma jirto warnimada nin baa waxaa la yidhi qaraxiisoo bataan buu ahay markaasuu yidhi yaa lahaay shabaab baa lahay baa la yidhi oo ma qarxiyeen buu yidhi maxay u qarxi waayeen 1500 qofood baa ku dhimataa la yidhi markaasuu yidhi inta qoslay iska daaya gaari la'aan baa ku dhacda ayagane war nimankiina warramaayo waa waalantihiin kuwaanna weeso ma dhowrno waxayna dhaheen haddaad waalantihiin ununa weesa nooma dhowrnaay haddaad waalantihiin ununa weesa nooma dhowrnaay haddaad waalantihiin ununa weesa nooma dhowrnaay